Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal. Ku soo dhowaada barnaamijka milicsigii waayihii hore oo aad ka daawataan channelka Faarax Fawzi. Waxaan bartamaha kaga jirnay dagaaladii Soomaalidu la gashay gumaystaha. Maantana waxaan ku soo qaadan doonaa halgankii Axmed Gurey. Axmed Gurey waxa uu ku dhashay magaalada Hoobato horaantii qarnigii 16aad. qiyaastii sanadka markuu ahaa 1506. magaaladan waxa ay ku taallaa waqooyiga magaalada Harar. Axmed Gurey waxa uu ku barbaaray magaalada Harar, quraankana waxa uu ku bartay isla magaaladan. Waxa uu bartay fardafuulka iyo sida qalabka dagaalka loo adeegsado. Waxa kale oo uu bartay shareecada Islaamka. 1542 waxa uu qabtay hoggaanka ciidamada boqortooyadii Cadal oo caasimadeedu ahayd Harar. waxa uu dagaalo badan la galay Xabashida. sanadkii 1528 waxaa dhacay dagaalkii Baadqi oo dhex maray Axmed Gurey iyo Xabashida. dagaalkan waxaa looga adkaaday Xabashida. waxa ay u qaylo dirsatay Boortaqiiska oo ahayd dawlad xoog badan markaas. waxa ay u soo direen 450 askari oo wata hub casri ah. taasina waxa ay keentay in Xabashidu soo qaado weerar cir iyo dhulkaba ah. waxaana uu geeriyooday 1543 iyadoo ay dileen ciidamo Xabashi ah oo gacan ka helay Boortaqiiska. Sheekh Xasan Sheekh Nuur Xasan Barsane wadaadkan waxa uu ka mid ahaa culimada u istaagtay la dagaalanka gumaystaha dalka ku soo duulay. waxa uuna door weyn ka qaatay abaabulidda dadka Soomaaliyeed iyo wacyigelintooda si ay ula dagaalamaan cadowga. waxa uu dhashay 1853. waxa uu ku dhashay tuulada Abaadi oo hoos tagta Jowhar. waxa uu halganka bilaabay horaantii qarnigii 20aad. Talyaaniga ayaa shiikha ergey u soo diray si uu xukunka Talyaaniga u aqbalo, laakiin sheekha waa uu diiday. dagaaladiisii dagaalkii Buulabarde 1922, dagaalkii Hiilweyne 1923, dagaalkii Jilyaale 1924, dagaalkii Hareerile 1934. dagaallo badan oo xanuun badan u geystay gaalada ayuu shiikhan ka qayb qaatay, balse uu gacanta u galay gumaystaha. waxa ay u soo qaadeen magaalada Muqdisho. waxa ay geliyeen gaal shire qol ciriiri ah oo sumaysan. halkaas ayuuna ku dhintay. taariikhdiisa dhimashada khilaaf ayaa ku jiro. daawadayaal, intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeena maanta. hadduu Alla idmo, muuqaalka xiga waxaad ku daawan doontaan halgankii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. intaan barnaamijkaas ku kulmi doonno, waa Faarax Fawzi oo idinkaga tegaya ammaano Allah.